الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحيي وريي lagu soo dejiyay rasuulka alle sallallahu alayhi wa sallam waxay ahaayeen aayadihii quraanka u horeeyay ee soo dega ee ku xigay aayadaha suuratul al-alaq aayadahan markii kor laga eego wax fudud oo sahal la moodayo laakiin xeel dheer oo dhumuc fog saameyn iyo waxtar adag leh malagu wuxuu soo gaarsiiyay dhanbaal had bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muddaththir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر soo dhaweyn iyo in si fudud loo fahmo darteed waxaan u kala dhigdhigaynaa fariintan qodob qodob ka odig waxaa loola jeedaa cid kasta oo uunka ku nool oo ku socota waxaan alle ka raali ahayn oo khilaafsan amarkiisa uga dig cawaaqib xumada amalkiisu leeyahay si ay uga walwalaan waxa ay ku jiraan oo uga weecdaan waxa lagu waaninayana u yeelaan weynaynta rabbina waxa looga dan leeyahay cid aan alle ahayn inaan koonkan looga haybaysan cid kasta oo dhulka isku weynaysana aan laga yeelin si uu alle kaliya weynaanta u yeesho daahirinta dharka iyo ka dhaxbaxa waxyaalaha xilka leh waxa loola jeedaa in nafta gudaheeda iyo oogadeedaba daahir laga dhigo oo ruuxda laga sifeeyo dhammaan dhaqamada xunxun si ay diyaar ugu noqoto ku hoos noolaanta hoosiiska raxmadda alle ee xaraca ah iyo ilaalinta iyo xifdinta rabbi iyo nuurkiisa iyo hanuunkiisa si ay ruuxdaas xilka xambaaraysa bulshada adduunka tusaale ugu noqoto oo u soo jeedato qalbiyada fayow kuwa bukaana ay u weyneeyaan oo ay uga haybaystaan si ay adduunka oo dhami marka dambe xaqiisa ugu soo weecdo iyadoo raali ku ah ama sandulaysan inaan waxbadso wax loo bixin waxaa loola jeedaa inaan wixii la bixinayo ama cid loo tarayo danaysi loo tarin iyo xeer iyo abaal dhigasho waji looga doonayo ee waa in alle dartii wax loo bixiyo oo adoomada alle wax loo taraa iyadoo aan dan laga lahayn magacna lagu doonayn oo daarta aakhiro iyo alle abaal looga doonayn dhinaca kalena aayadu waxay leedahay macno kale oo kaas ka agdhow oo ah ha abaal sheegan oo waxaad qabatay yeysan kula badan waxaa la doonayaa adoonka alle dartii u shaqaynaya inaanu wax isbidin oo wuxuu bixiyo ama qabtaa aysan la badan wixii uu bixinayana uusan waxbadsi iyo abaalgud ku doonayne uu u dadaalaa alle dartii oo wax u bixiyaa aayad u dambaysaana waxay farta ku fiiqaysaa waxaa rasuulku sallallahu alayhi wa sallam la kulmi doono oo dhibta karmaqaatayaasha madaxa adag ah oo diidmada xaqa iyo jees iyo yasid iyo ku dadaalida dilida isaga iyo asxaabtiisa iyo cadaadinta iyo ciqaabida wixii rumeeya oo rabbi dartii ku raaca waxaana alle farayaa rasuulkiisa waxaas rafaad ah oo rabbigay dartii ku gaari doona inuu u sabro oo u dulqaato oo adkaysi u yeesho si uu rabbigii u raali geliyo maxaa yeelay samirku waa sahayda looga gudbo caqaba kastoo adag loogana jiba gaaro hawl kastoo adag si loo gaaro raalinimada alle jalla wa ala kuwa kani waxay ahaayeen amaradii laga doonayay nabiga sallallahu alayhi wa sallam inuu fuliyo markii guudka sare laga eego sahal la moodayo fudud ha yeeshee dulucdoodu fog tahay waxay matalayeen riishad ama qarax kiciyay dabayl dheeraysa oo gees walba ka soo gashay dunta aayadaha waxay ka kooban yihiin maadooyinka aasaaska u ah dacwada cusub iyo faafinta iyo gaarsiinta diinta digniintu waxay tusinaysaa inay jiraan camalo ciribtooda la eedayo oo cidii gasha laga jaasayn doono oo laga jeebi doono oo hadda laga digayo qof walbana wuxuu garanayaa inaan dunida la isaga jaasayn waxa dadku falayo oo dhan marka digniintu waxay tusinaysaa inay jirto maalin aan maalmaha adduunka ahayn oo wax la jaasayn doono waana maalinta loo yaqaan qiyaamaha iyo maalinta jaasaynta iyo abaalmarinta taasina waxay lama huraan ka dhigaysaa inay jiri doonto nolol aan ahayn midda aan adduunka ku noolnahay dhammaan aayadaha quraanka kariimka ah waxay adoomada u dirayaan
waxididda iyo keliyeynta alleh iyo in isaga arrimaha oo idin loo deysto oo la isku haleeyo raaligelinta naftana laga tago iyo hawooyinkeeda iyo hawooyinka aadanaha iyo rabitaanadooda oo laga doorto raaligelinta alleh subxaanahu wa tacaala. maadooyinkan waxaa lagu soo koobi karaa qiridda tawxiidka iyo waxdaaniyadda alleh, rumaynta maalinta aakhiro, hufidda nafta oo ah in laga reebo munkarada, foolxumooyinka iyo dembiyada u soo jiidi kara cirib xumada, iyo in lagu beero kasbashada camalada wanaagsan iyo falalka khayr ee kaamilka ah. in talada oo dhan alle loo deysto. waxaas oo dhan waa inay la socdaan rumaynta risaalada nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam oo loo hoggaansamo tusaalooyinkiisa iyo hanuunkiisa toosan. aayadahaas bilowgoodu wuxuu xambaarsan yahay dhawaaq sare ka yimid oo codkii weynaha sarreeye ah oo nebiga ku boorinaya arrinkan weyn kana kicinaya hurdada iyo duuduubnaanta iyo dugsiga una diraya jihaad iyo halgan iyo hawl adag. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر iyadoo soo jeedinaysa inuu qofi u noolaado naftiisa kaliya ay fududahay, laakiin waxaa la gooyey inaad qaado xilkan weyn oo culus. marka hurdo raaxo ama gogol dugsoon waa waxyaalo la gooyey inay ka ahaadaan shisheeye hanaanka noloshaada. maxamedow, u kac degdeg arrinka weyn oo ku sugaya iyo xilka culus oo ku diyaarsan. u kac dadaal iyo daal, kac waqtigii hurdada iyo nasashadu waa tageene. wixii maanta laga bilaabo waa kuu soo jeed badan iyo halgan daba dheer oo adag ee u tabaabushayso arrinkan oo u diyaar garow. waa kelmad weyn oo laga boqo oo nebiga ka saartay gogashii dugsoonayd ee gurigiisa u deganaa, debadda uga saartay oo ku riday badmool ah oo halgan looga howlgalayo kala jiidasho laabaha dadka iyo wax ka beddelka hanaanka nolosha si loo weeciyo majaraha taariikhda oo loo bedelo marinka lagu socdo. rasuulkuna sallallahu calayhi wasallam fadhigii waa ka kacay, wuxuuna hawl u taagnaa muddo 23 sano ah. wuxuu u kacay oo u taagnaa faafinta diinta alleh, isagoo dusha u ritay culaabta culays badan oo qaali ah, aana u dabcin. waxaa saarnaa culayska xilka weyn ee dhulka, culayska aadanaha oo dhan, culayska caqiidada oo dhan iyo culayska halganka iyo jihaadka. goobo kala duwan wuxuu ku dhex noolaa dagaal joogto ahaa oo socday muddo ka badan 20 sano, isagoo aan arrin ka mashquulinayn muddadaas oo dhan. sidaas buu u taagnaa laga soo bilaabo markii uu maqlay dhawaaqa sarreeyaha weyn oo uu ka gudoomay xilkii culaabta badnaa. allaha nooga abaalgudo innaga iyo aadanaha oo dhan abaalgud khayr. walaalayaal, darsigeennii maanta halkaas ayuu inoo joogayaa. inta aynu ku kulmi doono darsigan darsi la mid ah, waa anigoo ah Maxamuud Jaamac. waxaan idinkaga tegayaa ammaano Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.